level kita nak level menanggalnya. Level TV وحنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. halkan waa inaan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan danayaasha arrimaha Soomaaliyaba shirkii sababtihiin Soomaaliyeed oo looga ballamay Soomaaliyeed iyo xaaladiisa kala socotaan Soomaaliyeed waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15keeda la isugu yimaado magaalada Soomaaliyeed 3 si looga heshiiyo hanaan doorasho oo dalku galo madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay Soomaaliyeed 2 balantu waxay ahayd 15 bisha August in la isugu yimaado magaalada Soomaaliyeed waxaa ka soo qayb galay 15 bisha August ballankii ilaa hadda soo gaaray madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha gobolka Banaadir عمر محمد حمود عمر فرش waxaan weli soo gaarin oo aan shirka soo qayb galin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo runtii aan cudurdaar u sameynayno ama cudurdaar leh oo xanuunsan intaan ognahay la cafiyaan leenahay dhammaan madaxda oo mahadcelinayna madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah u mahadcelinayna sorry waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sida ay ahayd waa mahadcelinayna waxaan rabnaa inaan ka cadeyno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantu ay ahayd iyagu ay dhinacooda ballanta ka qabteen oo aan leenahay walaalayaal shirki soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogashii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taala oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina ma ahan waxaan isleenahay xilli fariimaha hawada la isu mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii aan joognaa oo ay tahay in lagu wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogosha waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalka ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahnaan is leeyahay
inaan kadib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadayna maslaxada sidaa darteed halkii aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxda Soomaaliyeed waa ka fahmeen waa iska fahmeen Soomaaliyeed iyo Soomaaliyeed waa lagu soo heshiiyey tiriina waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanad isu aabada Soomaaliyeed waxaana ku kalsoonahay ka soo baxa Soomaaliyeed tiri inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas aan uga baxo runtii waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno sidii taladuba ay ahayd maantay waxaa noo furmay shirkii wejigiisii koowaad maanta la gudagalnay waxaan dhegaysanay maanta warbixin ka dhegaysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hanaan doorasho la kala doorto ama lagu dul shaqeeyo maanta ay nala wadaageen guddigii farsamada welina shaqadii way socotaa guddiguna waa ku jiraan hawshoodii balse maanta intaasay nala wadaageen caawana shirkii wejigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wada hadalladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ee nala wadaageen intii guddiga uga mahad celinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay u soo dadaaleen talooyin bay soo urusheen meel bay soo gaarsiiyeen wadahadalka caawi ah si guud mabdiyan waa isku afgarannay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u bannaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inayna soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii ilaa yidhaahdo ugu dambayn waxaan rabaa in halkaan uga diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu guulaysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaan leenahay walaalayaal shirkan insha Allah guul ku dhamaanaya safgarada ku dhamaanaya dalkuna hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha Allah taala taasna kalsooni buuxda ku qabnaa waana ku kalsoonahay in saad ku dhacayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo saaxiibadeena beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay Soomaali u garab taagan yihiin oo dowladda sida Soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan halkaa uga mahad celiyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaara doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay oo talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul laga gaaro loo siiyay waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaana wax haba yaraatee keeni kara in ay dib u dhacdo ma waqtiga qaaliga ah Soomaaliya laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa waxaan rabnaa inaan meesha ka sii wadno guulna u rajaynayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan insha Allah waxaan leeyahay kale gobasha waxaa dhigay reer Galmudug walaal kasta oo wax qabi kara gobasha reer Galmudug ku taxgaliya qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaanu ka bari karno ka qanci karno walaalkii qaba ama mas'uulkii qaba sidaa darteed gobasha la qadariyo haan la yimaado aad iyo aad mahadsan tihiin taas xaafadda mahadsan tihiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo يوسف عاد تفتح يوسف